Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Abdi Khayr soo dhawaada muuqaalkeen waxaan ku soo qaadan doonaa qayb ka mid ah tiirarka guusha intaanan muuqaalka u gudagelin badan haddaan ugu cusubtaan ugu soo biir janaalka subscribe inoo saar muuqaalka inoo laagale si u gaaro saaxiibo sidoo kale u wanaagsan sheerta ilaawin wala wadaag saaxiibadaada qaybta hoose comment inoogu reeb wixii fikira oo aad heydid mar kale ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta intaan muuqaalka u gudagelin waxaan ku weydiinayaa 3 su'aal weligaa ma isweydiiday sida loo guuleysto waa maxay qeexida guushaada macaanima ma lacagba inaad maamushid shirkadaada ama shirkadaha magaalada mid ka mid ah haddii aan gudagalno tiirarka guusha kow waa inaad joogtayda oo diiradda saartaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee lagu saleeyo safarkaaga guusha waa inaad joogtayso sababtoo ah waxaan u jeednaa inaad diiradda saarno natiijooyinka halkii aan ka baari lahayn habka haddii aad rabto inaad gaarto meel aad ku gaari karto wax kasta oo aad rabto ku dadaal inaad ahaato mid joogteeya oo diiradda saara baro inaad guuldarrada u aragto jaranjaro aad ku gaarayso guushaada mar kasta oo aad guuldaraysto waxaa badanaya fursadaha aad ku guulaysan karto beddel maskaxdaada diiradda saar habka natiijadaadana waa la gaari doonaa mar walba waxaad u baahan tahay inaad sid qof diiradda saara shayga uu markaas ku guda jiro tusaale ahaan waxaad tahay qof ardaya baranaya diinta allah waxaa lagaga baahan yahay inaad diiradda saartid cashirada lagu soo siinayo kitaabadana si fiican aad u akhrisid markaas waxaad noqon doontaa qof ku guulaysta imtixaanka xifdiyana axaadiis badan iyo aayado badan kuwa oo u sahlaya inuu si toos u xifdiyo axaadiista iyo kitaabka qur-aanka oo kariimka waayo jaranjarada shay walba bilowgiisa waxa uu leeyahay aas-aas lambar 2 ogow meelaha aad ku fiican tahay iyo meelaha aad ku liidato ogaanshaha meelaha aad ku fiican tahay meelaha aad ku liidato waxay soo dedejisaa inaad fahamto waxaad tahay waxay awood kuu siinaysaa inaad si fiican u fahamto nafsadaada iyo waxaad awoodday mar walba oo maskaxdaada awooddeeda aad garanaysid kartidaada iyo tabartaada aad garanaysid waxaa badanaya fursadaha shaygan aad uga faa'iidaysan karto diiraddan aad ku saari karto una joogtay karto lagana yaabo inaad noqotid qof shaygan takhasus fiican ku leh si fiicanna u fahamsan nambar 3 ku dadaal inaad wax cusub tijaabiso isku dayga waxyaabaha cusub ayaa muhiim u ah nolosha dhedhanna u yeela inaad noqotid qof la tartami kara bulshada inteeda kale waxaa macquula inaad ku jirtid tartankuna wuxuu rabaa inaad isdiyaarisid inaad wax cusub la timaadid inaad maskaxdaada ka shaqaysid tusaale ahaan waxaa tahay qof ka mid a orodyahanada dalka ama magaalada ama xaafad markaas uu degan yahay ama waxaa tahay kubadyahan ciyaara kubadda ama waxaa tahay qof qoraa ah oo doonaya in buugaagtiisa caalamka lagu soo bandhigo intaasoo shay waxaan kugu soo qaada tusaalahaas waxaa u baahan tahay inaad mar walba la timaado fikrad cusub shayga mar walba oo fikrad cusub lagu soo kordhiyana waxaa badanaysa in shaygaas si fiican loogu dadaalo natiijada shayga ka soo bixaysana waxay noqon doontaa mid aad iyo aad u sarreysa wax cusub mar walba oo tijaabisid waxaan noqon doontaa qof la yimaada guulo waaweyn safarka nolosha aad buu u dheeryahay balse waxaa badan guuldarrooyinka iyo guulaha guushu waxay tahay mid aad iyo aad u fudud markii loo maro waddada dhabta ah ee lagu guulaysto lambar 4 sida caadooyin caafimaad qaba inaad noqotid qof caado wanaagsan leh waxay kaa kaalmaysaa inay noloshaadu noqoto mid horumar leh mid wanaagsan akhlaaqiyan dabeecadiyan kartiyan qofku markuu dabeecadiisu wanaagsan tahay caqligiisuna nadiif yahay waxaa boqolkiiba boqol suurtagal qofkaasi inuu noqdo qof u dhowaada dhanka guusha inaad caado wanaagsan oo caafimaad qab la timaado waxay kuu horseedaa inaad guul gaarto haddaad caado xun leedahana waxay kuu horseedaa guuldarro aad iyo aad u weyn haddaad caadadaada tahay mid wanaagsan oo aad tahay qof akhyaar ah ahlu khayr ahlu sharafa waxaa macquula guushaadu inay kuu fududaato waayo waddada guushu kaligaa ma maraysid boqolaal qof ayaa kula maraya boqolaalkaas qof kula maraya waxaa macquula inaad dhexda ka taagan tahay mid walbana uu kaa doonayo inaad si wanaagsan ula dhaqantid caadada laguu sheegaa waa shay adiga mar walba aad samaysid ama xumaan ha ahaado ama wanaag ha ahaado tusaale ahaan salaada oo kale ama qofka quraan akhriska badan oo kale ama qofka tasbiixda badan oo kale wuxuu leeyahay caado wanaagsan qof walba ayaana jecel alla agtiisana waa laga jecel yahay marka caado wanaagsan oo caafimaad qabta waa inaad samaysataa si aad u noqotid qof guulaystuhu mar walba wuxuu ku dadaalaa in dadka uu ka gado wax nadiif oo sharaf leh
qofka muslimkaana Allah agtiisa ayuu mar walba ku dadaalaa inuu ka helo darajo wanaagsan oo Allah agtiisa sidee ku heli kartaa waa inaad caadadaada caado caafimaad qabto ka dhigtaa sidee waa inaad soonka salaada sadaqada mar walba joogteeda qofka muslimka ah darajadiisa karaamadii sharaftiisa wuxuu ku helaa raaligelinta Allah subxaana watacaala iyo xaqa waalidka oo guto xaqa jaarka xaqa muslimiinta mar walba guushaada Allah ayaa haya dadaalkaaguna adiga ayuu kugu xiran yahay waxaan rajeynayaa muuqaalka inaan wax badan ka faa'iiday hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu